baraha bulshada dalka Kenya ayaa waxaa si aad ah u qabsaday isla markaana hadalhayn ka abuuray arrin la yaab leh oo uu ku dhaqaaqay wiil tiktoker ah isla markaana ka mid ah dhalinyarada adeegsata barta tiktoka waxaana uu kusoo gudbiyo una dhashay dalkaasi Kenya. Wiilkan tiktokaga oo lagu magacaabo AQ9 ayaa waxa uu dhowaan channelkiisa amaba bartiisa tiktoka uu soo dhigay video cunto karin ah kaasi oo uu si live ah ugu karinayo kuna cunayo cayayaanka ama xayawaanka loo yaqaano fiidmeerta. Videogaasi ayaa si aad ah u qabsaday baraha bulshada falcelinna ka sameeyey barta tiktok iyo qeybaha kale ee social media. Wiilkani ayaa waxa uu cunay fiidmeer ama kibiliga hadba sidaad u taqaano, waxaana uu la kulmay arrin argagax leh, waxaana soo food saaray isagoo ka warbixinaya waxa uu kala kulmay arrintaasi qandho aad u daran iyo xanuun markaasi istaba joog ah kaasi oo uu saacadihii aynu kasoo gudubnay aad ula tacaalaya. Wiilkani ayaa waxa uu sheegay in muddo kadib marka uu cunay kibiliga amaba markaasi fiidmeerta in durbaba uu dareemay hargab in uu soo hayo kale, sidoo kalena sankiisa uu aad u qulqulayo, sidoo kalena madax xanuun joogta iyo qabow daran uu isagu dareemay muddo 6 saacadood oo xanuunkaasi uu hayay. Ayuu sheegay in marxalado kala duwan uu la kulmaye una dareemaye markaasi in uu dhib weyn isu geystay. Mana ahan markii ugu horeysay uu wiilkaasi arrintaasi fajac iyo la yaab kale uu ka sameeyay barta tiktok, maadaama goor sii horeysay sidoo kale uu cunay dooliga iyo sidoo kale qeybo ka mid ah cayayaanada inta badan bulshadu ay siyaabo kala duwan uga baqdo isla markaana dhibaatooyin caafimadeed dhaxalsiiyo ummadda. xilli uu wareysi markaasi uu siinayay mid ka mid dadka baraha bulshada caanka ee dalkaasi Kenya ayaa waxa uu sheegay in uu isagu markaasi dareemay qabow iyo xanuun aad u daran oo uusan horey u dareemin, waxaana uu sheegay in xanuunkiisa uu ku bilowday qarqariyo, sidoo kale uu dareemay hargab, sankii uu aad u qulqulayo, in uu xanuuno ka dareemo qeybaha jirka gaar ahaan xabadka iyo qeybaha kale ee jirka, waxaana xaaladiisu ay kasii dartay markii uu mar qura matagay dhiig uuna sheegay inuu aad u walwalay markii markaasi uu dareemay inuu u baahan yahay in cisbitaal uu booqdo. waxa uu sheegay inuu isticmaalayo dawooyin dabiici ah uuna aad markaasi uga soo horjeeday in uu booqdo cisbitaal maadaama uu ka mid yahay dadka aadka aanu u dooneynin in cisbitaalada durbaba ay amaba kula degdegaan xaalad kasta oo soo food saarto. waxaana leeyahay goor dambe calaamadaha markaasi laga dareemay isaga waxaa ka mid ah qanjiro iyo sidoo kale boogo qeybo ka mid ah jirka siiba dhuunta, waxaana taasi ay dhaxal siisay in codkiisa gebi ahaanba uu lumo, in qeybo ka mid ah jirkiisa ay kasoo daataan markaasi finan aad u tiro badan, waxaana uu sheegay in uu aad uga shallaayay. haddaba wiilkani ayaa waxa uu cunay oo uu karsaday fiidmeer, waxaana ku xiran bartiisa tiktoka dad gaaraya 209,000 oo qofood, waxaana muddada uu tiktoka soo galay imika markaasi daawaday muuqaaladiisa dad kor u dhaafaya 2.9 milyan oo qofood, waxaana uu ka mid yahay dhalinyarada aadka markaasi bartaasi tiktok ugu soo gudbiyo waxyaabo fajaci ama kaag abuuro. waagi baryana waxyaabo cusub ayaa ka dhaca wadankani Kenya, gaar ahaan dalkaasi Kenya aan iraahday oo inta badan arrimahan ay yihiin arrimo aan ku cusbuneen. haddaba waxaa jirtay tiktoka kale oo isagu si u soo caanbaxo darteed isaguna arrin fajac iyo la yaab leh ku sameeyey bartiisa tiktoka. haddaba wiilkani oo ka mid ah dhalinyarada adeegsata barta tiktoka magaciisana loo soo gaabiyey AQ9 ayaa waxa uu isagu markaasi sheegay in falkaasi uu ahaa mid markaasi isaga aanu markaasi dooneynin in uu sameeyo. marar badan waxyaabo badan ayuu isku dayay, dadka qaarna waxay sheegeen in cudurro aad halis u ah oo aadanaha u daran in laga dhaxlo cunitaanka cayayaanka qaar, dhibaato badanna markaasi dadka qaarna baqdin ayay ka muujiyeen maadaama wiilkaasi isku dayay inuu cuno waxyaabo badan oo ay ummaddu neceb tahay in aadanaha ay isticmaalaan. haddaba cayayaanada uu isticmaalayo marba marka ka dambeeya aad ayay u kala duwanaayeen. waayadan dambena waxuu bilaabay in uu kariyo waxyaabo markaasi ummaddu aysan ku dhiiran karin in ay isticmaalaan ama ay cunaan. waxaana leeyahay cudurrada laga dhaxlo waxaa ka mid ah ebola cudurka loo yaqaano iyo cudurro kale oo halis ah oo dhibaatooyin caafimadeed u horseedi karo
inankaasi maadaama uu sameynayo arrin aan horey loo arag oo meelaha qaar wadamo kale caanka ah. marka la eego heerka markaasi social media caanimada dadka qaar waxyaabaha ay doonayaan in ay sameeyaan islamarkaana ku qasbayo in magac iyo maamuus ay ku yeeshaan baraha bulshada durbabana ay aada u gilgilaan. dadka qaar ayaa waxay ku dhiiranayaan in ay ku qaaqaan arrimo aada u foolxun, arrimo caafimaad ahaan aanu wanaagsaneyn, habooneen bulshadu in ay sameyso. hadda wiilkan kenyaatiga ah ayaana arrintaasi waxa uu sheegay inay ahayd midii markaasi isaga uu sameeyey, inkastoo caafimaadkiisa uu imika sheegay in uu aad markaasi xanuuno kala gedsan u dareemaya. hase yeeshee haddana waxa uu leeyahay waxay ahayd arrin aan anigu doonaya, islamarkaana ay ku talagal aga ahayd in aan sameeyo. sidoo kalena ka mid ah waxyaabaha markaasi aanu kusoo bandhigo bartaasi tiktoka. bartiisa tiktoka markaa u fiirsatay IQ9 waxyaaba aada u kala duwan ayuu halkaasi kusoo gudbiyaa. si waa dhanka cuno karinta oo kenyaanka inta badan ku xidhan, waxyaaba badan uu isagu markaasi kala hadlo, raashinka noocyada uu karinayo, qaabka loo kariyo, waxyaabaha uu karinayo, iyo sidoo kale uu ka faalloonayo bal sida ay usoo dhadhamayaan cunada uu karinayo, dhadhankooda iyo waxyaabaha uu mar waliba halkaasi kusoo bandhigo si aada la yaab u leh. haddaba barta tiktoka markaad eegtana waxyaabaha ugu badan ee bulshada ay sameyso waayadan dambe waxyaaba markaasi dhaqanka iyo bulshadii waxyaabihii markaasi la yaqaanay aada uga duwan. qof welibana waxa uu raadinayaa in siyaabo kale oo gooni ogaha bulshada inuu isagu kusoo shacbaxo, isu soona shacsaaro. waxaa jirtay wiil ka mid a dadka tiktok adeegsada kaasi oo isaguna markaasi kusoo caanbaxay waxyaabo aada u kala duwan, isla mar ahaantana shaac bixistiisa ay ka dambeysay in uusan weligiiba hadlin. hase yeeshee haddana keliya uu fiidiyoyo soo gudbiyo, fiidiyadaasi oo qaarkood la xidhiidha waxyaabaha ku saabsan cuno karinta. dalka kenyana ma ahan dadka inta badan bulshada waxyaabaha halkaasi ay kusoo gudbiyaan intooda badan waa waxyaabo aada u kala gedsan. inagu bulsho ahaan waynu ka duwanahay. fiidiyoyada inta badan ay iyagu soo saaraanna waa kuwo kuwa markaasi bulshadu waxyaabo badan ay ugu soo jiidanayaan. laakiin arrintan ay ahayd midii ugu la yaabka lahayd, uguna fool xumeyd, oo uu qof aadana ah uu bulshada inta badan cambaareen oo kala kulmaya. dadka qaarna ay aada u dhaliilayeen tallaabada wiilkaasi sameeyey, qaarkood iyagoo u arkay inay tahay mid aada u foolxun oo aanu wanaagsaneyn, sidoo kalena dhexalsiin karto khatar caafimadeed oo soo wajihi karto wiilkaasi da-da yar. sidoo kalena waxyaabo karaahiye ah qofka bini aadanka. waxaa dadka qaar ay si maadeysi ah qaarkood uga hadlayeen in aanu qofka usoo martiyi karin inankaasi, maadaama ay ka suurtoobaan in waxyaabo kale oo bulshadu aanu doonaynin inay cunaan isaga uu ku qasbi karo, una hoosgelin karo in ay cunaan. waxyaabahaasi ayaa ka mid ah waxyaabihii ugu dambeeyay social media aada uga dhacaya. waana filaya inaad ka bogateen. bartan si toos aad noogala socotaan waa Maamuus Media Production. subscribe garee channelkan, sidoo kale la wadaag asxaabtaada muuqaalkan iyo muuqaalada ka dambeeya oo waxyaabaha dhacdooyinka aadka ugu la yaabka leh ay ka mid yihiin aynu kusoo gudbino.